halka maanta galabta waxaan isku imaanay inaan ka falcelinna MCA-da qaarkood oo meeshan maalin hore isku imaaday oo arin ay ka bixiyeen ummadda ay been u sheegeen aan rabno inaan saxno. Horta mashaariicda ay ka hadleen waa dawladda sare, dawladda county-ga ma aha. Marka waxaan dhihi lahaa horta nimanka maartay aqalka iskula jirna war shaqada ay reebajar noo soo doorteen oo aan qabsana shaqo waxa dawladda national waxa ku shaqo leh xildhibaanada MPs-ka shaqada ku leh. Marka hoos u soo dhaadhaca waxaan u maleynayaa ismaamulka wadankan Kenya wuxuu ka hirgelay sanadkii 2013 waxa hadda laga joogaa waxa la soo dhaafay 11 sano 11 sano meeshan Wajeer South la dhahayo oo baaxadeedana ay tahay 22000 square kilometers oo u dhigmata boqolkiiba 38 dhulka Wajeer County ku yaala maanta inay wixii gali ay noqdeen wax fara ku tiris ah oo markii maanta la xisaabo aan ka badneen lacag 800 milyan aan ka badneen Wajeerna waxay deeq u heshay 12 sano waxay u heshay 100 bilyan bay u heshay 100 bilyan waxaan ka helnay 800 milyan marka taa waxay ku tusaysaa in maartay aan lagu si cadaalad aan dhaqaalaha lagu bixinin mana wanaagsana mar walba annaka xildhibaanada la soo doortay shaqadayna bedelkan qabsan lahayn inaan maalin walba qabiil iyo reebel aan ka harno waxaan u sheegi rabaa ragga walaalihii maalinta meeshan ka hadlay waxay ka hadlayaan waa wax 23 bari ah dawladda sarana waxay wax ku sareysaa oo lacagta dhaqaalaha Wajeer County soo gaalaya iyo kan CDF-ka iyo kan county-ga waxa lagu saleynayaa census-ka la qabtay xisaabka la sameeyay 2019 marka haday leeyihiin 2019 wixii dhaqaalo ku soo baxay waa qalad haddii dhaqaalaha imaanaya consensus walba oo CDF-ka iyo kan county-ga waa qalad markiida waxa kale oo jirta meel la dhahayo CSG oo lagu gumaada reer Wajeer South oo u mathala meeshii ida arrimaha donors-ka meeshii ida lagu qaybiyo marka waxaan u sheegi rabnaa CSG-ska wixii ka bilowda maanta inaan wax damba ay sameeyeen aan ogolaanaynin hana noo sheegeena presskan kadib waxaan ka rabnaa CSG-ga sanadkii aan soo dhaafnay qaabkii ay wax ku bixiyeen ay wax ku saleeyeen Wajeer hay'ado badan aad jooga waana markaad fiirisid Wajeer South waxa ka gaaray hay'adahaas ay ka qayb laga siiyo boqolkiiba waa 5 marka waxaan rabnaa inaan u sheegna SG-da macallay county steering committee-da waxay sameeyeen in cadaalad darro tahay diyaarna aan u ahayn inaan ogolaano haddana aan ka codsanayna ugu yaraan 7 casho inay nagu siiyaan wixii sida wax ay u qaybinayaan sheegaynaa walaalaha naga maanta laga bilaabo waxaa noo furmay albaab wada xisaabtan ah oo Wajeer South kalima ahane meel walba oo dulman mise xaqeeda la dulmay mise la gacan bidxeeyay in ay xaqeeda hesho ma midna anaga Wajeer South kali waxaan nahay rag meeshan fadhiyo u fadhiyo reer Wajeer shakhsi walba Wajeer County ku nool cadaaladiisa iyo xaqiisa inuu helo ayaan maaragtay meeshan u fadhinaa oo nu midna marka waxaan rabnaa nin walba xaq uusan lahayn inaan la siinin shakhsina xaq u laha laga qaaday waxaan u sheegaynaa marka bulshadeynta reer Wajeer in maanta laga bilaabo annaga hadaan nahay MCA-da meeshan taagan aan u taaganahay xaqi reer Wajeer ninkii garan waayay dadkii soo doortay mas'uuliyadii ay soo dhiibteen annaga meeshan waa u taaganahay hadduu asaga gabay annaga ma gabayna marka waxaan u sheegaynaa in ummadii na soo dooratay mas'uuliyadda noo dhiibatay haddii maanta aanan arkin sababihii iyo wixii meeshan oo lagu soo doortay aanan arkin waxaan u arkaa inay khalad tahay in hool nin kale uu leeyahay faraha la gal marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaha naga dad waxaan nahay wada shaqeeyo ehel ah wax walba isu lahaanahay waxaan ugu baaqaynaa in meel cilla duuroon waxba naga jirin aan aadamahane in aan iskugu imaano aan la xisaabtano dawladii annaga nafteena aan la xisaabtano maaragtay ummadii wax muhiim u ah mashaariic mise bills aan keenna meeshan oon marina si ummadda anaga ay u hesho horumar iyo wixii meesha maariyaal waxaan filayaa dhaqaalaha Wajeer yaal hadii si fiican loo maamulo inuu nagu filan yahay oo maaragtay uu ku filan yahay dhan mashaariic horumarineed iyo wax walba marka waxa kale oo u baaqaynaa laamaha ku maaragtay ku shaqale sanadka committee standing order of devolution EACC iyo shakhsi walbo maaragtay arintan qusayso oversight-kiisa iyo mandate-ka uu siiyay sharciga Kenya
in ay imaadaan si la xisaabtan dhab ugu dhaca. marka waxaan anaga meeshan u joognaa maanta inaan ka daba tagna hadalkii aan u aragnay inuu qadaf ku yahay reer Wajir South ma ahane meelaha ay mathalaan nafteeda oo jawaab u yahay ama aan ka daba tagaynaa war gaaray bulshada oo si qaldan loo fahmay inaan ka saxno. ugu horeen waxaan rabaa walaaladay aqalka aan isku jirno qaybtii ka hadashay shalay in cadaalad aan wax lagu qaybinin marka hore inaan u sheego in uu yahay shaqada ay ka soo baxday national government-ka. annaga waxaan la dhahaa County Assembly of Wajir. Wajir dhaqaalaheeda, dakhligeeda iyo hawsha Wajir laga qabanaya ayaa masiirka iyo mandate-ka annaga uu ku egyahay ta national government-ka ka imaatay waxa soo qaybiyay national government-ka waxaana oversight-ka ku sameyn karo MP-ga ama member of parliament. waxaan u sheegaynaa marka maadaama ay fureen wada in badan in laga hadlo u baahnayd isla xisaabtan ku eehan ama lagu saleeyay population-ka wadanka ka jiro oo dawladda dhaxaba ay noogu soo siidaysa dhaqaalaha iyo maxaa yahay baaxadda dhulka uu leeyahay. waxaan u sheegaynaa in maanta meesha ay farta sida goonida ugu fiiqeen Wajir South ay tahay baaxadda constituency-ga kaliya ee Wajir aan dhihi karo nuskeeda inuu la egyahay boqolkiiba dhulka markaad eegto 43 Wajir waxay ku taalaa Wajir South. waxaa raaco oo ah in population-ka markii la raaco 2019 oo ilaa hadda maxkamad diiday aanan jirin inaan saxaan rabaa maxkamad diiday aanan jirin ee wadanka wax lagu qaybiyo. waxa maanta ku qoran in Wajir South ay tahay boqolkiiba 37 population-ka Wajir yaalo taas oo micnaheedu u dhigmato Wajir South markii wax laga qaybsado in ay qaadato shaqaalaha 37 boqolkiiba maanta oo ay taagan tahay waxaan leenahay boqolkiiba 4 wax ka yar malaha 300 oo shaqaale ah. waxaan u sheegaynaa marka nimanka walaaladeena war tan qusaysay waxay ahayd county-ga qaabkii wax u qaybsanayay saami qaybsiga county-ga ka jiray la xisaabtankeedii in annaga ay mas'uuliyad naga saaran tahay Wajir in cadaalad loogu shaqeeyo aan u dhaaranay. waxaan u sheegaynaa in aan rabno in aan la xisaabtanno county government-ka qaabka ay wax u shaqaalaysay dhaqaalaha sida ay u geynayso dhulalka kala ah ugu yaraan meelaha aan mathalno ee waradka ah waxa gaaraya aan isweydiino xisaabtan county-ga dhaqaalihiisa sida loo qaybsanayo ah oo runtii cadaalad ku dheehan in aan wada istaagno in micnaha runtii ay imaatay dhaqaalihii 100 bilyan county-ga Wajir since devolution uu bilowday ee aan dhihi karo maanta Wajir South wax ka yar 1 bilyan ayaa tagay. aadna ka qaylisaan wax ka yar 30 bari shaqaale ah temporary ah soconayo waxa ka cadaaladsan ka wanaagsan 5,000 ku dhawaad shaqaalaha ee permanent-ka ah in qaabka lagu shaqaaleeyay aan wax iska weydino aan ku xisaabtanno aanan si cadaalad ah u qaybsanno. committee-kan wuxuu ku saabsan yahay press statement-kii ay bixiyeen qaar ka mid ah mudanayaasha loo soo doortay aqalkan hoos oo Wajir inay mathalaan. waxay ka caawanayeen qaabkii loo qoondeeyay shaqaalihii yaraa oo 30 bari ka yar inay u shaqeeyaan la rabay department-ka agriculture oo soo aruurin rabay data ama warbixin ground-ka xog inay deegaanada ay ka soo aruuriyaan loogu targalay. waxayna sheegeen qaabka loo qaybiyay shaqaalihii soo aruurin lahayd xogtaas in ay cadaalad darro ahayd. waxaan rabnaa inaan dhammaan u sheegno shacabka reer Wajir iyo dadkii si qaldan u fahmay warbixinta raggaas ay bixiyeen. waxaanu in sheegaynaa
horta mashruuca asaga waa mashruuc maal gelinayso ay qabanayso dawladda sare national government waxayna iskaashanayaan county government of Wajir qaabkii loo qoondeeyay shaqaalaha hoose ayaa waxay ahayd census-kii hadda la qaaday 2019 population-ka iyo dhulka baaxadiisa ayagoo eegaya ayay u qaybiyeen dadkii deegaanada ka soo aruurin lahaa warbixinadaas waxaa kolkaa muuqatay oo qaabkii dawladda sare u qaybisay oo muuqatay in ay fiiro gooni ay siiyeen dhulka baaxadiisii fiiro gooni ay siiyeen dadka deegaanka degan tiradoodii fiiro gooni ay siiyeen maalmaha ee shaqadan la rabay inay lagu soo qabto oo muddada shaqadan in lagu soo qabto la rabay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka maanta dawladda Kenya markii dhaqaalaha laga soo qaado oo county government of Wajir dhaqaalaha loo soo qaadayo waxaa jira 4 shay oo la fiiriyo oo koow ay ka tahay tirada dadka ama population-ka deegaanka degan in dhaqaalaha lagu soo qaado oo koow ay ka tahay oo ay ku xigta dhul deegaanka baaxadda dhulka intuu dhan yahay ay ku xigto oo ay ku xigto wax la yiraahdo equitable share ama haddii kala sanad lacag oo u siman countiyada kala dhammaan kolkan waxaana ugu dambeyn oo ku jirta meesha ayada ah poverty index ama haddii kala baahida deegaanka ka jirta sida dadka u kala saboolnimada dadka deegaanka ka jirto waxaanu rabnaa kolkan dadka saaxiibaday oo sheegay press conference-gaas in cadaalad darre ay meesha ka jirtay figas iyo data in la isticmaalo ee sax ay tahay oo 5 sano la soo dhaafay ee dawladda ay ku qaybinaysay dhaqaalaheedii